Better International University. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عشر كيني قيبتاً وحينو كو قادان دونا إنينو فهنو the concept of contribution matching waxa uu yahay waxa loo yaqaano contribution matching waa maxay contribution matching waa inagii soo aragnay waa wixii inoo soo baxay marka dakhliga laga gooyo kooska qaybta variable-ka waxa inoo soo baxa labada number marka la kala gooyo ayaa contribution la yiraahdo qaybtan ayaynu si fiican ugu fahmaynaa fikradda la yiraahdo contribution matching oo management account-ka qayb weyn ka ah the only numbers baynu leenahay numberada kaliya that change from selling different quantities markii cadadkii la iibinayay markii la badbedelay ee marna 5 laga dhigay marna 40 laga dhigay the only numbers that change from selling different quantities and cadadkii la iibinayay labada number ee kaliya isbedelay waxa weeyaan baa laynagu yiri waa total revenue iyo total variable cost waa total revenue-ga markii 5 la iibiyay revenue-gu kun buu ahaa markii la iibiyay 48 kun buu noqday total variable cost-ku markii la iibiyay markii la soo iibsaday 600 buu ahaa markii la soo iibsaday 40 na wuxuu ahaa 4800 fixed cost-ku markii la iibiyay 5 waa labadiisii kunun markii 40 la iibiyayna waa labadiisii kun operating income-ka iyada change-keeda kuma darayno sababtoo ah iyadu waa maxsuul waa result waa natiijo ka dhalatay laba shay dhexdood dakhligii iyo variable cost-ka la kala gooyay marka iyada behavior-keedu waxa ay u dhigan tahay kuwii la kala gooyay sida yihiin marka iyada ma discuss karaynayno qodobkan waxa uu inagu yiri the only numbers that change from selling different quantities labada number ee kaliya isbedelay markii quantity-gii la iibinayay la bedelay are total revenue iyo total variable cost weyn labada kaliya u jawaab celiyay waa labadaas the difference between total revenue hadaba farqiga u dhaxeeya ama inta ay isdheer yihiin total revenue-ga iyo total variable cost-ka ayaa la yiraahdaa maxay contribution margin waxa la yiraahdaa the excess of revenues over total variable costs inta uu dakhligu ka badan yahay baa la yiraahdaa variable cost-ka ama waa farqiga u dhaxeeya revenue-ga iyo total variable cost-ka waxaynu isweydiin karnaa maxaa contribution margin loogu magacaabay maxaa contribution margin loo leeyahay sababta contribution margin loo leeyahay waxa weeyaan it represents waxay ka taagan tahay baa laynagu yiri amounts of revenue waa dakhligii oo laga jaray variable cost-kii that contribute taasoo markaa inaga dabooleysa ama contribute garaynaysa to covering fixed cost waxa la yiraahdaa Mary will not make profit faa'iido sameyn mayso unless she covers the total fixed cost ilaa ay contribution-keedu uu ku filaado inuu fixed cost-ka cover gareeyo suurtagal ma noqon mayso inta uu numberkan ka badan yahay inta uu fixed cost-ku ka badan yahay labada difference-kooda she will not make profit marka contribution-ku shaqada koowaad ee uu meesha u joogaa waxa weeyaan it represents amounts of revenue waxa uu ka dhigan yahay amount-kii revenue-ga oo laga jaray variable cost-ka that contribute kuwaasoo u taagan inay meesha ka saaraan ama ay liqaan to covering the fixed cost inay fixed cost-ka ay qaabilaan marka Mary marka ay labada kun ee fixed cost-ka cover gareyso ee contribution-keedu uu ku filaado inuu cover gareeyo ayay faa'iido sameyn doontaa marka uu fixed cost-ka cover gareeyo ee uu shaqada koowaad qabto contribution-ku inta kadib maxaa uu sameeyaa when fixed costs are fully recovered marka fixed costs-kii uu sideedii u qaabilo ee uu leekaado micnaha contribution margin contribute waxa uu hadana ku darsamaa to operating income profit-ka ayuu ku darsadaa ama faa'iidada ayuu ku darsamaa marka sidaa halkan inoo arkayno contribution-ku laba shaqo ayuu qabanaya covering the fixed cost inuu fixed cost-ka daboolo and then contributing towards profit halkan hadaad u fiirsato Mary and contribution margin-keedu waa 400 fixed cost-kuna waa 200 waa 2000 sorry waa fixed cost-keeduna waa 2000
afartii boqol contribution kii waxay ka fargareeyeen qayb yar oo ka mid ah fixed cost kii sidaa awgeed khasaare ayay gashay Mary 1600 maxay isku dheeraadeen fixed cost-ka iyo 1600 400 waxa weeyaan waa intii uu contribute gareeyay total contribution margin ku laakiin qaybtan kale hadaad eegto Mary contribution keedu waa 3200 3200 maadaama yihiin total contribution kii laba shaqo ayay qabanayaan qayb kamidii waa 2000 ayay micnaha fixed cost ka ayay ka fargareynaysaa waxa soo haray waa 1200 1200 waxay toos ugu biirayaan operating income marka waxa weeyaan aynu halka ku baranay faa'iidada uu leeyahay contribution ku shirkadda ay ka contribution badan tahay ayay ka faa'iido badnaanaysaa waxa kale oo aynu iclaamin lahayn oo ku soo gabagabeyn lahayn contribution ku waa laba nooc waa mar aynu leenahay total contribution margin oo marka lagu helayo total revenue-ga oo laga gooyay total variable cost macnaha waa total shay kastaaba waxa uu leeyahay parent iyo waxa uu leeyahay child and total contribution margin waxa lagu helaa total revenue-ga oo laga gooyay total variable cost laakiin sidoo kale waxa jira contribution margin per unit contribution margin per unit isagana waxa lagu helaa unit selling price waxa inta shayga la siinayo oo laga gooyay unit variable cost inta la soo siiyay bal tusaale ahaan qaybtan aynu soo saarno waa kan total contribution kii wayna labadan aynu kala goynay markaynu total ahaan ku soo saarnay labadan aynu kala goynay 1000 minus 600 contribution kii waxa weeyaan total contribution kii waa 400 laakiin marka aynu rabnay inaynu soo saarno contribution margin per unit waxa uu isna inoo noqonayaa waa unit selling price kii oo 200 oo laga gooyay unit variable cost oo isaguna ah 120 marka waa 80 unit variable contribution margin per unit ama unit contribution margin isaguna sidaas ayuu 80 inoogu yahay qaybtan guud ahaan waxaynu ku fahanay waxa uu yahay contribution margin halkaas ayaynu ku dayn doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh